Assalaamu calaykum waraxmatullaahi warkii ugu farxad badnaa ee abid ay maqlaan dhegaha ummadda Soomaaliyeed ninsiina kaasi oo dalka Jabuuti ay ku kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Kulanka ayaa waxaa ka qayb ahaa Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyadoo arrintaasi ay gadaal ka riixaysay dowladda Mareykanka, waana kulan heer sare oo ay labada dhinac kaga qayb galayeen wafuud aad u culus. Xubnaha rasmiga ah ee wafdiga heer federaal ee ka qayb qaadanaya shirka wadahadallada masiiriga lagu gogol xaaraya waxaa hogaaminaya madaxweynaha dowladda federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaaraha dowladda federaalka mudane Xasan Cali Kheyre, Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliyeed mudane Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, Wasiirka Arrimaha Gudaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye iyo xubno kale oo aad u culus. Dhinaca Somaliland iyagana waxaa hogaaminaya ama ku matalaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, Gudoomiyaha Guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan, Wasiirka Arrimaha Dibadda Yaasiin Maxamuud Faratoon iyo xubno kale oo ayagana aad u culus. Dhanka kale, war kale culus oo degdeg ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay aqoonsatay Axmed Madoobe inuu yahay madaxweynaha Jubbaland. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in muddo 2 sano Axmed Madoobe ay u aqoonsatay inuu ahaado madaxweyne ku meel gaar ah oo Jubbaland maamuli doono inta laga qabanayo doorasho xor iyo xalaal oo dhacdo oo dadka Jubbaland dhammaan ay u wada siman yihiin. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale isla maanta gogol u fidaysay dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir si looga arinsado arrimaha doorashada ka qabsoomi doona dalka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa si aadasha loogu dhigtan loogu tagay waxyaabaha ka soo bixi doona kulankaasi xasaasiga oo ay isku wajahayaan Somaliland iyo Soomaaliya. Allow ka yeel baan leenahay kii ka soo baxa war farxad leh u roon dhegaha ummadda Soomaaliyeed. Halkaad nagala socoteen waa Deegaanka TV. Shako halkan si aad ula socotid waxyaabaha ka soo baxa kulankaasi adag. Subscribe, share iyo comment waa xaggiina daawadayaal. Mahadsanidin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.